wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaa markii ugu horeysay booqasho rasmi ah ku yimi magaalada Berlin ee xarunta dalkani Jarmalka. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee wasiir arrimaha dibadda oo ka socda Somaliland uu ku yimaado dalkani Jarmalka tan iyo laga soo bilaabo 1991 18 May markii magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagaga dhawaaqay go'itaanka Somaliland. waxaana wasiir Maxamed Cabdilaahi Cumar warbixin siiyay telefishinka caalamiga ee Cable TV uu kaga warramayo socdaalkiisa iyo waliba waxyaalaha uu qabsoomay. waxaan kaloo ku bishaarinayaa in wadahadallada halkan aan u joogno iyo kuwa aan jecelahay in dalka Holland aan ku yeerno inay yihiin kuwa runtii na dhiirigelinaya haddaan nahay mas'uuliyiintii iyo siyaasiyiintii qaranka. waa kuwa muujinaya in dareenka qaaraddan Yurub حق Somaliland إنه واحد بدنا يسكبتلين والله أركو Somaliland دولة مسؤولة. نوال وحكى على جمهورية جيبوتي إدريس كأنها دور شو ولو كره كوبستي سيدو أكثر. مركو قرر سواحن جعلها أنا قاعد لي مقع شعبك يو دالك Somaliland إن أنه وهم بلي إنه دولة أنو شاركنا جيبوتي دور شدي برلمان كهاي دوان كدعدي. wararkii ka soo baxay hordhacana waxay muujinayaan in doorashadu ay si nabadgelyo dalka uga dhacday si xor ah ay uga dhacday. marka arrimaha waxaan jecelahay inaan horta marka hore ku hambalyeeno anagu waan jecelahay waxaan nahay dowlad dimuqraadi ah oo doorashooyinkan iyo arrimahan xisbiyada iyo dimuqraadiyadda runtii si wanaagsan Somaliland uga socoto. marka waan soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sida amniga ay wanaagsan uga dhaca wadamada jaarka. safarkii dhawaan aad ku helisay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee aad ku tagteen caasimadda Ingiriiska ee London. waxa jira in qaar kamid ah jaaliyadda Somaliland ee halkaas joogtay ay cabashooyin gaar ahaan wasaaradda ka muujinayeen madaxweynaha hortiisa. leelaha noocaas iyaga maxaad sibad u arkaysay? safarkaas marka hore wuxuu safar ka dambeeyay arrimaha xagga nabadgelyada warbixintii dawladda Britain ay ka soo saartay dalka Somaliland. hase yeeshee kulanka aan la yeelanay jaaliyadda waxaa jiray nin anigu aan hore arag oo kamid ah jaaliyad Maxamed Haroun Afrayn magaciisa oo ka muujiyay tixraac iyo warqad xafiiskayga ka soo baxday oo ka hadlaysay arrimaha amniga barigii riboodka ee dawladda Ingiriiska ku soo saartay. marka Maxamed wuxuu xigtay sentence ama jumlad ku jirtay warbixinta oo aanu arkaynay dadkuna arkay in aanu si wacan u fahmin. waxa uu Maxamed sheegay in kelmadaas ay muujinaysay in aanu niri waanu ku fashilanay nabadgelyada Somaliland ilaalinteeda. laakiin deesada ma hayn. marka waxa ahayd baan filayaa faham la'aan dhinaca Maxamed kelmadu waxa ahayd waxaan noo muuqan oo aanan arkayn cabashadan Ingiriisku uu ka muujiyay nabadgelyada Somaliland nooma muuqan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar booqashadan uu ku yimi magaalada Berlin ee looga arrimiyo xarunta dalkani Jarmalka ayaa noqonaysa booqashadii ugu horeysay ee rasmi ah ee wasiir arrimaha dibadda ee Somaliland uu ku yimaado dalkani Jarmalka tan iyo laga soo bilaabo 1991 May markii magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer lagaga dhawaaqay Somaliland. Mustafa Xaaji Aadan Haaruun telefishinka caalamiga ee Cable TV Berlin Jarmalka.